maanta ay taariikhdu tahay 10kii bishii 12aad 2023 waxaanu bilownay olole aan ku soo ururinayno gaadiidka loo yaqaano bajaajta ama tigta ololahan oo aan iska kaashanayno wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka wasaaradda horumarinta maaliyadda iyo laanta nabadgelyada wadooyinka ujeedadaanu ololahan u sameynay waxa uu daaran yahay laba qodob in gaadiidka bajaajta ama tigaha loo yaqaan loo sameeyo kala wareejin sidoo kale in darawallada wada gaadiidka loo sameeyo liisan waxaan ognahay gobolka Togdheer inuu yahay gobolka ay joogaan tigaha ama bajaajta ugu badan Jamhuuriyadda Soomaaliland sida awgeed waxa laga maarmaana in gaadiidkan loo sameeyo sharciyadii dhameystirayay waxaan ognahay gaadiidka bajaajta ee gobolka jooga 90% ama in ka badan inaanay wax kala wareejin lahayn sidoo kale waxaan ognahay gaadiidka darawallada wada inaanay wax liisamaan lahayn waxaanu ka warqabnaa gaariga bajaajta ama tigta loo yaqaano maalintii inay 6 darawallo kala degaan gelinka horena 3 kaxeeyaan gelinka dambena 3 kaxeeyaan waxaanay mansuuriga u yaqaanaan arintaas oo runtii noqotay dhaawac ku noqotay bulshadii ay u adeegayeen waxa way khasaaro badanna soo gaarsiisay si aan u yareyno khasaaraha bulshadan soo gaaraya waa inaan u sameynaa darawal kasta oo gaadiidka wada liisankii uu gaari ku kaxay lahaa waxaan baaq u diraynaa oo aan doonaynaa inaanu ay baaqaa sida ugu fiican uga soo jawaabaan gaadiidleyda tigaha kuwaasoo aan ujeeddadaanu ka leenahay tahay in gaadiidka siduu maamulu sheegay in gaadiidka tigaha ah wixii cashuure lagu leeyahay hadday ahaato mid liisana hadday ahaato kala wareejin iyo wixii cashuura ku baaqday intaba in maxaa laga howlgalay dhammaan gaadiidleyda tigaha ee gobolka ka howlgala magaalada Burco ka howlgala oo cadadkoodu badan yahay dhowr kun yahay oo intooda badan aanay haysan 90% aanay lahayn liisanna ay ku wadaan gaadiidka ay wadaan iyagoo riskigooduna badan yahay khasaarahooduna badan yahay markaasi loo kontrolo waxa in ololahan lagu soo qaado maxaa la yiraahdaa si loo sameeyo liisanadoodii loo sameeyo gaadiidka ay wataana ay u yeeshaan xaqlihii gaadiidka iyo maxaa la yiraahdaa darawalkii ay isku waafaqaan dhankoodana taliyaha ciidanka taraafikada ee gobolka Togdheer Jaamac Ismaaciil Cali iyo suduwaha wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka ee gobolka Togdheer Maxamed Kaariye Muuse ayaa dhankooda tilmaamay in ololahan uu yahay mid socon doona saaka sida la soo sheegay suulintii horreysay sheegtay halkan waxaynu isugu nimi arrimihii gaadiidkeennii magaalada inoo joogay iyo gobolka Togdheer ee bajaajka ahaa oo dhowr jeer oo horena aynu hawshooda dhaqaajinay siiba xagga kala wareejinta iyo liisamaynta in aynu hawshoodii dardar gelino haddii Ilaahay idmo Ilaahay haynala qabto gaadiidka magaaladeennan jooga ee bajaajka ahi marka loo eego gudaha magaalada oo gaadiid aad u fara badan waxaan filayaa 2 iskaashata inooga dhisan magaalada diiwaangelintooda iyo tiradooda guud gacantaynu ku haynaa xafiiska ciidanka nabadgelyada wadooyinka lagu diiwaangeliyaa gaadhiga bajaajka ahi ma shaqo galo marka ama la iibsaday magaalada laga xidhaa ama uu dibadda ka soo galo shaqada ma galo ilaa xafiiska taraafiga loogu sameeyo diiwaangelin xogtiisana halkaa la dhigo haddii Ilaahay ka dhigo marka waxaan filayaa iskaashata 2000 iyo waxoogaa bay maraysaa iskaashatana 1400 iyo waxoogaa bay maraysaa gaadiidka inta leeg baa magaalada dhexdeeda Burco jooga ee bajaajka ah taasi waxay keentay in dhibaatooyin fara badan yimaadaan marka hore bulshada waxaan ku baaqayaa waxa weeyaan gaadiidkan inaga keensanay oo manafacadsanayna oo waxaynu u keensanay in aynu manafacadsanno oo aynu ku adeegano oo aynu ku shaqaysano marka waxa weeyaan
waxaa loo baahan yahay inaanu iska kaashanno sidii dhibteedan aynu u yarayn lahayn si shaygii inoogu adeego oo baahidii waxa weeyaan loo keensaday u qabto dhibkiisiina inaynu yarayno dhibkiisu muxuu ku yaraanayaa innagoo gacmo isqabsanna wadayaashu mas-uuliyaddu iyagay saaranta wadow gacantaada iyo mas-uuliyaddaada ayay ku xidhan tahay gaadiidka adeegsigiisa si nabada in loo adeegsado iyo inuu mushkulad noqdo mas-uuliyad darro badan baan ogay oo gaadiidkaa yaryar dadka wata ah shilka iyo dhibaatada iyo imtixaanka dhacayaana wuxuu ka imanayaa mas-uuliyad darrada iyo aqoonta darawalku ma aha in isteerinka gaadhiga la qabtoo la dhaqaajiyo way ka duwan tahay marka iskuul dareefarka lagu baranaya darawalnimada waxa in badan soo noqnoqoto oo la yidhaahdaa ku xisaabtan dabeecadda waddada mar kasta ood socoto dabeecadda waddada daba waa maxay waddada aad maraysaa way isbeddelaysaa laami adoo maraya bay ciid noqonaysaa ciid gelaysa ama dhagax baad gelaysaa waa inaad taqaanaa gaadhiga aad wadato meesha cadowga u ah ee inuu gadoomo fududaynaysa iyo ismiidhkaad ku mari lahayd eed kaga bixi lahayd halkaa waxaa ka mida dabeecadda waddada goolad bay gelaysaa dalcad bay noqonaysaa hoobad bay noqonaysaa waddadu way soo yaraanaysaa waddo kalaa karoosaysa waxaasoo dhan waxa weeyaan dabeecadaha waddadu la imanayso waxaasoo dhan baa loo baahan yahay darawalku inuu aqoon u leeyahay waxaa kaloo loo baahan yahay darawalku inuu aqoon u leeyahay tanka gaadhigiisa darawalku gaadhiga uu wataa tankuu qaadi karo inuu aqoon u leeyahay isla markaana aanu aqbalin 1 kiilo dheeraad in la saaro hadduu yeelo darawal maakaasi waa laga qaadaa ruqsadda hadalkan wuxuukiisa waxaa dhameeyey saraakiishii ka horreysay oo soo qatimay anigu gebagabu maan ku leeyahay sidaa la sheegay xafiiska wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta gobolka Togdheer waxaa ku diyaara dhammaan adeegyadii gaadiidka dadweynaha ayaa ku diyaara hadday tahay liisan hadday tahay biyakiiba waa nasiib darro maanta in dhammaan adeegyada halkaa lagu diyaariyey ay jiraan in lagu soo qasbo darawallada ama mulkiilayaasha gaadiidka inay qaataan adeegga ay qaataan waxaanu u sheegaynaa marar badan oo hore halkan kala hadalnay inay adeegyadaasi ay diyaar yihiin in haddana ay qaadan weydaan oo maanta la isku soo qasbo ay nasiib darro tahay inaan maanta dulqaad dambe aanu jiraynin iyo wareeg dambe iyo wasad dambe aanay dhici doonin gaadiid bilaa liisana ama bilaa kala wareejina ama bilaa dhugmida aanu mari doonin waddooyinka magaalada Burco